بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada waa qayb kale oo ku saabsan Mendeley ku saabsan marka maalin hore waxaan soo qaadanay dhowr qaybood oo ku saabsan sida literature-kii loo raadiyo oo loo soo maaragtay maxaa la yiraahdo loo soo helo iyo haddii aad soo hesho reference-ga sida loo raadiyo PDF-kii sida loo raadiyo waa kaas waxay ahaa labada qaybood soo maanta waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inaan qayb kale barano qaybtaas kale maanta waxay ku saabsan waxa waaye Mendeleygu waa powerful tool oo ku saabsan literature search-ga marka dhinacyo badan laga fiiriyo waxaan rabaa inaan tusiyo tusaale ahaan marka aad joogno websites tusaale ahaan daatooyinka inta badan hadda ku saabsan COVID-19 ku saabsan waxa laga helaa inta badan website-kana laga helaa daily updates-ka maxaa la qaybahan marka website-kan oo kale marka rabtid inaad ka soo xigatid tirada maaragtay cases-ka coronavirus-ka adduunka ama data-ska ama recovery-ga ama xitaa wuxuu ku tusaa by country ayuu ku tusi karaa sidoo kale waxaas oo dhan marka aad maaragtay maxaa la rabtid inaad soo xigatid mushkilada jirta mushkiladu waxa waaye there is no PDF in here meeshan PDF iyo word file wax file la dhahayo dhan ma jiro macnaha see u soo xigan karaa marka su'aasha maadaama aanu jirin maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg word aanu jirin ama aanu jirin PDF aanu jirin si loo soo xigto marka documentiga see marka maxaa la yiraahdaa Mendeleyga loogu rari karaa kan oo kale see loogu rari karaa dhexdiisana lagama dhex raadin karo because waxaan looga dhex raadin karin waxa waaye literature search-giisa PDF ama book maaha macnaha waxaan maaha macnaha waxa kooda file maaha marka maxaa xal si marka intaas loo xaliyo Mendeleyga ku soo laabana wuxuu leeyahay meeshan waxa ku qaal waxa loo toolka marka ku dhufato wuxuu leeyahay waxa loo install web importer waxa waaye waa importer ku siinaya citations-ka website-ka booqanays every website aad rabtid inaad booqatid waxa ku siinaa this powerful tool ku siinaa so we want to install now waxaan rabnaa inaan ku rakibno maaragtay maxaa la computer-keena maxaa la yiraahdaa ay sheeg web importer-ka so mar walba ku dhufato maalin hore ka soo sheekay the best browser-ka ugu fiican ee lagu shaqeeyo marka aad isticmaalaysid Mendeley waxa waaye Chrome browser inuu update ku noqdo Chrome-ku kaasa maaragtay maxaa lahaa kan ugu fiican meelo badan oo kamid hadii browser kale adeegsanaysid waxa laga yaabaa inuu ka diido inuu si fiican u shaqeeyo marka waa kane meesha marka imaado waxa imaanaya waxa loo Mendeley web importer okay you see import papers web pages-ka iyo other documents-ka directly into reference library in soo dhigto meesha marka ku dhufano waxa leenahay get web importer for Chrome okay I'm using Chrome so that's why I'm maaragtay maxaa la yiraahdaa oo leenahay Chrome oo leenahay so qayb ahaan marka wuxuu ku keeni doonaa meeshan oo kale for example meeshan marka waxa isticmaaleynaa add to Chrome add to Chrome so waxa leeyahay add to Chrome just waxa leeyahay hadana add extension wuxuu shaqeyn doonaa as a file extension ayuu shaqeyn doonaa oo soo download gareysan marka meeshan oo safari oo soo download gareysan marka uu maaragtay soo download gareysmo muxuu dhahay Mendeley web importer has been added to your Chrome okay dad badan laga yaabaa inaan arki karin marka hore laakiin hadda waa kane this is the importer kaasoo meeshan importer ayaa maaragtay maxaa la yiraahdaa ku dhigan يعني أنت مارك محل zoom جدول for example أنت بحاول grammatical صحيح so ماشان واي مارك محلها قيبهان كاسوها مركا هذا وكره كبيها مركا وكني مركا هذا إيمانا ماشي هذا ماشان حنقول جان كورونا فيروس كداتديسي أيام مارك محلها كله ما مركا قارو حلقة بقى إنكو سعودي ما مركا قارو حلقة بقى إنه كعلة دو بقى أو ماشان كسوم مقنا دو ماشان كسوم مقوى وحالة تجسد حدا نبعد أو setting كه kadib waxa ka dooranayna setting kadibna waxa ka dooran karnaa inaad tagno waxa loo extension meeshan ay qoran tahay extension so an extension waxa ku soo doona all the extensions-ka saalaan this is what Adobe maaragtay maxaa la Acrobat it is inactive now haduu inactive yahay saan oo kale ku muujina macna markuu active yahay calaamadan ku muujina so markuu blue waa hadda waa dansiyan yani saas ka dhiganta meeshan fiir markuu Mendeley web importer-ka waa kane this waxa active waa هذا inactive ka dhiga fiiri oo ka baxay meeshan okay hada soo galiyo sidoo kale oo soo galay that is marka difference u leh hada rabtiin asiga dhan iska saarto kana saare kan hada saarto Mendeleyga dhan ma baxay laakiin waxa baxay this web importer ka dhanaa computer marka labadan calaamo ina saan dhahdo macnaheedu waa maxay off ka dhigta waa laakiin wali computer ka uu ku jira
ona dhihi kartaa macna option laakiin haddii remove ku dhahdo sida hadda kala soo bilaaba in inta tago Mendeley aw tool tago oo web importer tago oo soo download gareeyo noqonaysa macna haddii remove dhahdo so don't mark saan oo kala noo hadlo so inta tago this is the coronavirus datihiisa waa kan yaad datadii waa tan hadda marka si datadan u soo xigto waxa ku dhufanaa meeshan waxa ku qoran calaamada yar ay ku qoran tahay Mendeley ay ku qoran tahay maxaa la qaybaan so markuu ras data wuxuu ku dhahaa consent soo gali yani maaragtay ina fasax siiso oo maaragtay ku soo rakibo waxyaalaha maaragtay maxaa la yiraahdaa uu rabo qaybaankaas karinaan okay marka waa kale inta waxa ku qoran add pdf variable hadii pdf ku dar hadii la heli karo oo hadii la heli karo leeyahay sababtoo waxa inta badan waxay u baahan tahay inaan leeyahay laakiin hadii la heli karo okay inta waxa ku qoran meesha la gali lahaa inta waxa ku qoran mail library laakiin waa bedeli kartaa hadda inta kale ku dhado waxa dooran kartaa collectionska collection waxa kooda folders ana hadda intaana folder ay sameeysan so folders kan ayaan maaragtay maxaa la yiraahdaa ku dari karnaa hadii aad daneynayso inaad maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg ku darto qaybahan sorry marka inta habbe ee noo furan ama maaragtay inta aan maaragtay maxaa lahaa rabno inaan ka bilaawno ama inta folder ay noo sameeysan inta hadda aynu tusoo karo intaana folder for example laga yaabaa inay sameeysan tahay marka hadii aadan maaragtay maxaa lahaa doonayn hadda marka rabto inaad folder gooni ku save gareyso kaliya laada folderka for example insi hadda rabna kan ku save gareyso hadda marka saddexdooda ku soo save gareyso hadda rabna laba ku save gareeyo waa kaas hadii aadan folder dhan dooran oo sidaan ku wada yahay sida maaragtay markuu asalka yahay oo kale marka sidaan oo kale duu yahay macnaheedu waa maxay wuxuu kugu save gareeyaa meesha ay ku qoran tahay all documents marka hadda xogti waa tanay marka hadda maxaa sameeyna xogtan midda saxda ah fiirna midda saxda waxa kooda meesha ciwaanka ku yaal waxa waa coronavirus cases kaasa maaragtay maxaa la yiraahdaa cases kuwane datiska waxyaalahan ama maaragtay maxaa la COVID-19 coronavirus pandemic so marka ciwaanka maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg inta ku jira laga yaabo inuu yahay ciwaanka saxda ayaan maaragtay maxaa la yiraahdaa doornayna tusaalahan coronavirus cases ma doornay ma waxa doornaysa kan okay kan wuxuu ku saabsan yahay Wuhan China so this the main fear kan waxa way that means pdf ayaa la heli karaa kan coronavirus update miya maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg waxa aad maaragtay maxaa lahaa u socoto so waxyaalaha way kala duwan marka midba midka aragtida sameyn kartaa tusaalahan ana waxa leenahay kana ku dhufana waxa la kan ii door marka almost calaamad inta active maaha laakiin marka mid doorato waxa noqonaa active noqonaa marka ciwaankan inta badan hadda coronavirus caseska intaan waa datiska laakiin ciwaanka saxda waxa laga yaabaa inuu noocaan oo kale yahay oo update oo maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg pandemic oo ku saabsan yahay so waxa laga yaabaa markaas oo kale inaan dhaho yes kana maaragtay maxaa la yiraahdaa u dhow marka aad fiiriso qaybaan oo caseska iyo datiska iyo recovery waxa dhan maaragtay maxaa laga yaabaa in la heli karo marka intaas oo doorto kadib waxa leeyahay add hadda oo laakiin intuu igu dirago library hadda rabto waa bedeli kartaa ANC leedahay okay tan waxa leeyahay add okay assembly asaa wareegsanayo markuu maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg sameeyo ama uu dhameeyo that means uu ku daray ANC so hadda waxa ku soo laana marka isagi maaragtay meeshan hadda waxba ku miyaalo Soomaa laakiin waa inaan dhahaa calaamadan refreshka ama maaragtay maxaa la lahaa maxaa la yiraahdaa sendka inaad taabto waay si uu yani isku xiro ilaan meesha hadda uu wax ku save gareeyo marka aad fiirisid meesha hadda uu wax ku save gareeyo marka aad fiirisid waxay ka dhigan tahay maxaa la yiraahdaa waxa ka dhigan tahay Mendeley maaragtay webka ka dhigan tahay laakiin anaga waxa rabnaa inuu ka soo dhex muuqdo Mendeley maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa inuu ka soo dhex muuqdo waxa la dhaho Mendeley desktop inuu ka soo dhex muuqdo so hadda uu soo galay daas waa ka laakiin waxa ka maqan authorkii ayaa maaragtay maxaa la ka maqan marka ku dhufato wuxuu ku weydiinayaa su'aashan sax miya haday sax tahay correct waa hadii kala sarjin ina u dirto ayay noqonaysaa si maaragtay maxaa la lahaa uga soo baxo qaybahan intaas qodobka kale aan maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg rabnay ama maaragtay u soconay horta hadda marka waa kan oo soo galay yes qorayga waa kan
maxaa la yiraahdaa world meter marka world meter is not an individual marka qaarkood waxaa noqdaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg qorayga wuxuu noqdaa individual meesha noqdaa wuxuu noqdaa an organization sida kan oo kale so world meter ayaa qortay ciwaanka intaan waay meesha lagu soo qoray intaas waa sanadka 2020 la qoray page 1 waay meesha ay joogo for example access date waxaa loo jeedaa inta badan date access xilliga aan maaragtay access gareey xilligan waa so wuxuu siinaa laba URL for example all of this waa kaasay so kanoo kale laakiin waxa way marka aad soo dhaxdo aad marka soo dhaxdo ma ku soo muuqanayo ilaa ka dhaxdo calaamadan ilaa ka dhaxdo okay ama maaragtay inta ka baxdo oo saacado kadib marka ku soo laabata laga yaabaa inuu maaragtay maxaa la soo galo so waa inuu jiraa marka connection labadooda ka dhaxay so this is called a web import a very important tool way waxaan inta badan loo isticmaalaa web page waxa lahaa meelaha website-yada oo kala oo xog laga helo laakiin aanan lahayn document qoran maaragtay maxaa la yiraahdaa meel yaal aanan lahayn meelahaas oo kale waa meelaha laga loo isticmaalo waxa loo yaqaano web pages ka meelaha loo isticmaalo that's all marka kaas waxa waaye waa web page ka waa qodobka kale aan rajaclaalahay maanta inaan tusiyo waxa waaye maalin hore waxaan baranay sida Mendeley-ga for example sida Mendeley-ga dhexdiisa wax looga raadiyo inaan siga dhexdiisa inta tagto wax ka raadiso waxa aad ka tagto drag inta soo dhahay soo jiido aad soo gashato folder qaas aad maaragtay maxaa la soo gashato laakiin maanta waxaan rabnaa inaan tusiyo hadii bal ka waran aniga aan haysto PDFs ama articles ama thesis qoran oo diyaarsan oo meel yaala oo software as hada u haysto hard copy uu yahay waa ka jawaabaa su'aasha laakiin asoo software hada haysto ka war su'aalahan waxa haysta ka soo qaadba waxa haysta folder gooniya folderkaas waxa laga yaabaa inay igu jiraan maaragtay maxaa la yiraahdaa qayb ahaan inay igu jiraan waxyaalo oo maaragtay ay ku jiraan ay ku keedsan yihiin oo ku saabsan yaani ku saabsan maxaa la yiraahdaa ii sheeg book ahaan ku saabsan qaybaan oo laga yaabaa inay yihiin waxyaalo oo maaragtay documented ah ama waxyaalo oo maaragtay qoran oo meel iyaan okay let's for example show you we have waxa la dhaho maybe you have information ama waxa haysana data daabacan okay this for example this data dan oo kale waxa ku saabsan tahay C section intaan oo dhan waxa waa books waa PDFs waa articles ayaa meeshan ku qoran for example so let's open and see the first article okay so many articles okay article waxaan ku sameeyay stance and predictor of surgical site infection yani ciwaankan iskaga practice gareynana okay marka hadda waa haysaa kan sidoo kale intaan oo dhanba waxa waa dhowr article hadii dhowr article haysto ka hor instead of raadi lahaa literature hadda literature hela literature ka inta ka keenay literature ka waxa ka soo download gareysay Google-ka ama Google Scholar-ka ama maaragtay PubMed-ka yani ama website meelaha ka soo download gareysay kulligood marka fiiriso waxay ku surgical site infection associated factors oo Ethiopia laga sameeyay kulligood marka fiiriso marka waxa waa kaas maxaa xala marka kuwan si u dhaxgali karaa Mendeley-ga si u dhaxgalina that's very simple way fududahay taas waxay maanaynaa Mendeley-ga furay folder-ka aragti inaad ku darsatid doorne hadaa rabtay all documents ku daray hadaa rabtay folder gooni hadaa rabtay kan inaad ku dar hadaa rabtay inaad kan ku dar mid ka raba ku dar for example let's for example I want to show you kana raba hadii inaad ku dar meeshan ay ku qorantay ANC waxa igu jiro xasuusnaa world meter-ka daatada ka keen inta raba inaad ku dar waxa sameeynaa for meeshan calaamadan yarta maan hore calaamada waa inuu tusiyo isku mid laakiin calaamadan yarta hada ku dhufato dhowr option ku soo furmaayo dhowrka option waxa add file ku dar file waxa loo jeedaa one PDF marka ku dareyso for example file allah add folder waxa waa folder dhan ku dar that means waxa folder waxa ku jiro dhan inta soo galayaan kana waxa waaye maxaa la yiraahdaa word folder there's another matter loo isticmaalaa kana manual loo isticmaalaa in tusinaasi hadda marka waxa isticmaalaa add file okay just add file adahno so waxa fureynaa marka waxa raadinay marka meesha ku yaalan salaana wixii yaalan documents kadibna waxa tagaa meeshan hoose yaalan for example meesha wax ku yaalan adiga yaqaano oo maaragtay ku yaal so for example kan oo kale waa kanima hadda u baahan tahay in hal xabad soo gelisid oo binaalada
kan hadda u baahantayna soo gelis open ala inta ku dhufato kan ku dhufo open hadda mid ka rabtina soo gelish hadda rabtina laba isla soo gelis kan inta ku dhufatid calaamada controlka inta qabatid haddana kan ku dhuf hadda labadan hadda rabina kan ku daro waa kaas hadda rabina kan ku daro waa kaas hadda dhamaantood rabtina ina hal mar soo wada geliso control a ina dhaxday kaaga xiran tahay hal mar soo wada gelis so for example waxa rabaa ina kan soo geliyo let's see kan uu horeeya doortay open isla markii fiir automatic muxuu dhahay ciwaankiisa waa kan intaanu qofooda qortay maxaa la yiraahdaa journalka lagu soo daabaca kan waay sanadkaana la qoray dan taariikhda hadda ku soo darana taariikhdan is that right sax miya warkaas waxa laga yaabaa inuu sax yahay fiiri ma kaaga baahna kan ina PDF raise maxay already PDF kiisa soo gelis hadda ku dhufato inta so you see maaragtay maxaa la yiraahdaa magacyada waa kuwan dadka qaar waxa laga inaa magacyada la yaabtiin oo aad dhahayd war maxay tahay meeshan oo ka bilaabayo m pokoro muxuu uga bilaabay sababtu waxay tahay maalin hore ka soo sheegay marka waxaan la qoraayo waxa la hormariyaa last name ka la hormariyaa soo qofka inta magacana la hormariyay kan ay kana maxaa laga soo qaadaa initial maaragtay maxaa la yiraahdaa laga soo qaadaa initial kala oo sax that's all waa kaasay okay ku celi haddana mar kale hadda mid kale u baahdo inaan soo geliyo waxa sameynaa add file kadib haddana kan hadda u baahdo inaan soo geliyo kana ku dhufana simple haddana mar kale waa kanaysan asoo kan kii date waa kanaysan sina waxa lagu soo daabay BMC waa kaasay hadda mid kale u baahato inaad soo geliso sorry hadda rabo inaad soo geliyo ka waran folder ka dhan hadda rabo inaad soo geliyo calaamadana isticmaala ala folder okay just search it ana raadiso ku xiran yahay folderka soo meeshaan oo kale waa documents calaamadan taabo sorry okay so documents let's search it yeah C section it's this folder ka ku dhufana okay le okay you see all of this is so galeen macna all of this hal mar ay maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg soo galeen qaybahan so hadda folder u baahatan waa marka laba siba waa Mendeley gudihiisa wax ka dhex raadi kartaa ama banaanka wax ka soo gelin kartaa ka labadaba option ba laba option furan hadda kan fiir kulligood ma iga wada baahan inaan buug soo raadiyo xayla buugtooda wada haysan waxa soo geliyo wuxuu ah buug marka laba shay waa kaliya marka inta isticmaalayso waxa raadinay citation kadib waa buug raadinay marka isticmaalaysid add kan marka isticmaalaysid waxa soo gelinay buug marka soo gelin citation in ay raadiso asakaaga ma baan hadaad ba internet access haysato isla markiisa automatically asaa u sameeynaayo ma aragtay qayb walba oo kamid ah waxyaalahaas kaasna waa qodobka labaad ee aan jeclaalahay inaan istusino balmaanta ma marka qaarkood waxa laga yaabaa inuu ku soo gali karo duplicate waxa ka wada many files marka qaarkood waxa hal file inuu dhowr jeer ku soo laalaab hadii dhacdo inuu file laba ama saddex jeer ama afar jeer ku soo laalaabto waxa la isticmaalaa calaamadan okay meeshaan hadda ku dhufto tool meesha data tagano meeshaan waxa ku qoran check for duplicate so simple ku dhufo muxuu dhaa no duplicate wax duplicate ma jiro duplicate waxa laga wadaa file haduu laba jeer soo laalaab okay folder kana taga hadana waxa leeyahay click waxa leeyahay check duplicate you see hadda muxuu dhahaa mataqaana 6 sets 6 muxuu ka wadaa 12 macna 12 6 sets waxa waaye 6 beer waa macna 6 beer waa maxay laba camal okay ayaa jirto isku ag oo leeyahay tusaalahan kan oo kale waxa uu leeyahay laba jeer soo laabtay kan sidoo kale laba jeer soo laabtay 1 2 3 4 5 6 lixdan ayaa soo laabtay so for example okay kan sidoo kale asna soo laabtay kan oo soo laabtay you see almar inta ku dhufana calaamada yarta ku dhufana fiir muxuu dhaha 1 2 3 jeer soo laabtay okay kan sidoo kale wuxuu soo laabtay 1 2 3 jeer kan sidoo kale dhowr jeer soo laabtay macna okay kan fiir 1 2 3 dhowr jeer soo laabtay kan sidoo kale asna inta soo jeer soo laabtay meesha wuxuu ku dhisaa waxa loo confidence waxa waaye ka laabto confidence waxa waaye kalsooni yani labadan file ama saddexdan file ee leeyahay way isku egyihiin leeyahay kalsooni intee leeg ayaa lagu qabaa inay isku egyihiin mararka qaar kood laga rabaa waxa laga yaabaa in magaca bis iska egyihiin oo laakiin inta kale ku kala duwan qaar waxa laga yaabaa inay kala duwan ciwaanka inay isku mid yihiin inta kale kala duwan marka kalsoonida
calaamada marka waa muhiim calaamada fiirsi u buuxdo way buuxdaa that means 100% waxa lagu kalsoon yahay failiska magacaan wada wata oo ah kuwaan ah okay marka inta ku dhufato ah kuwaana inay isku wada mid yihiin la kalsoon yahay waan u jeedaa si isku eegin okay kan sidoo kale 100% kan sidoo kale kan oo kale xogaa yar kalsoonida waxba ka yaraaday macna okay let's check okay you see ayagana maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg qaabka uu noqonayo so waa kaas kan sidoo kale kana uu kalsooni yar macna wuxuu leeyahay failiska noocan oo kale ta waxa laga yaabaa xogaa inaynan maaragtay maxaa la aad isku ekeen qabka haddii marka u baahan tahay inaad sameyso waxa sameyn kartaa waxa la dhaho merge files haddaa ogaatid inay isku egyihiin waxa sameynay merge okay merge waxa loo merge waxa waa inta ku dhufo waxa dhahdaa calaamadan merge documents right click ama marka ku dhufato inta taabo waxa dhahdaa confirm merge oo ku gudbaa kara oo maana confirm merge dan confirm merge that means waa maxay hada kadib wax isku eg meesha ma jiro haddaa u baahantay inaad sameyso mar kale jag duplicate muxuu ku dhahaa no duplication wax duplication ama file laba jeer ama saddex jeer soo laabto oo dambe oo meesha ku jiro ma jiro macna inta badan file soo laabanay maan hore sameyn waxay ka imaanayeen marka maaragtay ku soo darin taas waxa marka aragti ina maaragtay sameyso maxaa la yiraahdaa duplicate ka marka aad rabto inaad sameyso qaybaan qodob kale jeclaan lahaa inaan tusiyo waxa waaye ma marka qaar marka waxa dhacda intaas markaan ku gudubno inaa hesho book PDF oo hard copy soft copy ma hard copy softigiis inta raadis aweys kaasoo kale soo xigana kaba soo qaad waxa laga yaabaa maaragtay maxaa la yiraahdaa qof researcher ah ama book maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg heshay inuu u baahan tahay marka qaar kood reference maaragtay maxaa la ahaan wax ka qorata u baahan tahay waxa ka qorata inta soo akhrisay boogan caadi ah soo library-ga tagtay lacala library marka tagtay booga soo akhrisaa soo xigata booga si walba u raadis waa weys ama waxa laga yaabaa thesis ay sameeyeen maaragtay maxaa la lahaa qolay ka horeeyay ama arday ama maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg researcher ka horeeyay oo haadina soo heshida laga yaabaa xitaa asoo software marka qaar hada soo heshida waxa laga yaabaa adoonan publisher ahayn adoo xitaa qofka asoo PDF adoo ku soo siixita hada inta soo gelis inta ma soo qabanay maxay inta wuxuu soo qabtaa wixii publisher oo la soo daabaco hadoo marka qof computerkiisa waxa iskaga haysta marka qaar u dhibanta markaas oo kale maxaa xalay waxa la sameeyay meeshaan la tagaa waxa la qoraa waxa loo add enter manually okay manually loo geliyaa markaas oo kale tusaale inta tagaa waxa la horta marka kood wuxuu ku weydiinaa what type waxa ahaysid maxay hada article miya macna journal article miya haduu book ya book dhay haduu book qayb kamid yahay haduu case yahay computer program miya conference miya encyclopedia miya film miya hada marka qaar kood film hada ku soo aragtay yes you can cite maaragtay maxaa la sheeg generic miya hearing miya waxaasna waa kaasay okay magazine miya newspaper miya maxaa patent report maaragtay all of this television broadcast thesis tusaale waxa ku dhufanaa thesis waxay weydiinaa qorayga qora for example waxa la ka soo qaad waxa la Faarax Usmaan Geedi so I will say Geedi Faarax Usmaan for example so maxaa say u qorto weydiina first name ma qablada mise last name okay hadda marka saa u qoro mar walba magaciisa caadi ah qora for example waxa lahaa qofka magaciisa waxa lahaa Faarax ka soo qaadba Abdi Geedi for example saasa magaciisa lahaa soo qora marka okay leh so asma ka soo bilaabay Feeri Geedi ka soo bilaabay oo last name inta waxa sanadka qoray boogan waxa la qoro ka soo qaad 2020 page ka soo xiga rabta adiga page waa page ka soo xiganaysid abstract waxaas malahan tag keywords department university all of this waa kaasay so waxyaalahan inta badan ugu muhiimsan waxa waaye title-ka absolutely title-ka ciwaanka maxaa waa ninkan ciwaanka oo qoro maxaa waa ka soo qaad inuu yahay ANC
attendance in Somalia ciwaan saas oo qoro ka soo qaad so waxa qoro ANT attendance in Somalia yaa qoro hebel waay nuuca waa thesis waay okay then waxa leeyahay save so I'll save to see if it has in here you see here halka u jeedo geedi faar okay geedi faar cabdi and see attendance in Somalia 2020 qore so publisher ma hamba inta baan meel lagu soo daawacay ma aragtay jirto hadii marka manual oo baato waxa tageynaa meeshan kadib waxa ka dooranaysaa inter manual markaas gooni ayaa u gelinaysaa qaybahan hadii xitaa oo ka qaldamo mararka qaar kood oo waxaan oo ma aragtay meesha wax ku qoran iyo wax kale isla hawaayaan sidaan oo kale ayaa loo qoraa qaybta marka inta badan waa sida loo sameeyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg duplicate iyo waxyaalaha sida loo sameeyo hal qodob ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo mar qodobkan jeclaan inaan kusoo gabagabeeyo waxay tahay sidee loo sameeyo groupku waa very important mar walba sababtoo waxa waaye waa very important groupka ka dhigaysa waxay tahay inta badan waa la isla wada shaqeeyaa hal qof research kama sameeyo waxa isla wada sameeyo group isla sameeyo groupkaas marka waa inuu hadii marka adiga library-gan gooni inta wax u raasatay library-gan abuuratay qofka kalena library kale oo haysto qofka kale library oo haysto way dhib badan tahay marka qaarkeed sidaa daraadeed marka waa inaa halkan library wada share gareyn kartiin oo adiga hadaa wax soo geliso asiga oo arki karo asiga hadaa wax soo geliyo adiga ay ku soo muuqanayaan intiina in ka dhaxeeyo waa inaad maaragtay maxaa la soo galaan so kaas oo kale marka meeshaan ku dhufanaa waxa ku qoran create group okay just click here so inta waxa u bixisaa groupka magacu bixi okay groupka magacu bixi for example magaca aragto bixi so for example waxa la yahay NC 2020 group so for example waxa u bixina saas oo kale u bixi ka soo qaad inaan magac noocaas oo kale u bixi inta wuxuu leeyahay groupka description ka bixi description hadaa ka tagi kartaa hadaa wax baa soo qori kartaa NC ama waxa la ka soo qaadba class waxa waaye maaragtay ama waxa la class waxa waaye of 2020 waxa rabtaa iska qor macna inta marka muhiima groupka saddex option oo leeyahay public miya invite miya private miya hadoo public noqdo that means open discussion and reference sharing that means waxa waaye public hadaa dhahdo that means qof walba waa groupyada waa naqaana marka oo tusaalahan Facebook ama waxa la mid marka group la furayo groupka waa naqaana hadii group abuurtid macnaheedu waa maxay groupka marna waxa ka dhigi kartaa public waxa waaye group qof walba oo soo gali karo any person arki kara oo soo gali kara oo arki kara haduu arkana wuu soo gali kara wax laga baahan yahay ma jiro qofkaas inuu ku dhufto bay ka xiran tahay daas waa public marka aad leedahay invite marka aad leedahay maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg public waa sina invite public waxa qof walba uu arki kara groupkan magaciisa xiisu arki kara laakiin qofka markuu uu rabo inuu soo galo haduu ku dhufto wuxuu u baahan yahay approve waa maxay ansixin ina adiga ansixiso qofkaas aad dalabkiisa aqbasho qofka adminka inuu aqbalo u baahan yahay hadaan la aqbalin qofkaas ma soo galay macnaheedu maxay waa sida caadiga inta badan lagu shaqeeyo sidaas maaragtay loo baahan yahay inta badan daarabtay tusaalaan qof Facebook-giisa inuu ku darsato waa inuu qofka waa arki kartaa qofkaas Facebook-giisa meesha waa ka arki kartaa ku dhufato waa inuu asoo ku aqbalo maahan otherwise groupyada qaar asaasa jiro ayaga inta waxa jira private waxa waaye no one can see qof arki kara haba yaraatay ma jiro macnaheedu qofna ma arki karo yani Mendeley marka qaar kood meesha groups-ka ma loo rantusinay Mendeley meesha groups-ka ku qoran marka ku dhufato waxa jiro waxyaalo aadan maaragtay maxaa la arki karto open kuwa kan marka qofna ma arki karo si loo soo galaayo marka su'aasha qofka adaa link u dira xaalad adaa invite gareynay waa casuumaysa macna qofka waxa u diraysa invitation closer group xana waa cid arki karta cid ka warqabta mal ilaa qofka ina invitation inta u dirto oo invitation ka soo aqbala maahan soo hadda waxa ka dhiganaa private maxaa la qeybaan because public qof walba ka soo galaayo way dhib badan tahay dad badan laga yaabo inay ku soo dardaraaro ka hadlayaan kan waxa laga yaabaa inay approve uu kugu dilaa laga yaabaa oo maanta oo hebel aan saxiixay hebel aqbalo uu kugu dhaho soo kana ku dhufanana marka qofna ma naga arkay maxaa la kan soo xalanaay create group group ka sinaawo soo wuxuu leeyahay invite people qofku cazum qofku rabto maaragtay maxaa la yiraahdaa ku cazume laakiin aad maaragtay maxaa lahaa qofku cazum si for example waxa leeyahay waxa ku cazumay qofka for example noo isku cazum
qofaa ku casuuma for example so waxaa la send invitation u dir marka invitation u dirto isla markiiba groupka intaan oo kale ayuu maaragtay maxaa la ka sameysmaa so this waa kana ANC 2020 group this is the group waa kana maxaa la lahaa ii sheeg qaybaha it's very important groupkaas haddii uu rabo qofkaas inuu kasoo qayb qaato isaga uu taalaa oo kasoo qayb qaadana haddaa maaragtay u baahan tahay ama maaragtay qofkan aad rabto inaad soo heshid waxay ku xiran tahay inaad gasho meeshii ay ku qorneed Mendeley inaad maaragtay maxaa la raadiso Mendeley web inaad maaragtay maxaa la raadiso qofkii raba inuu groupkan loo diro invitation qofkii loo diro ee raba inuu kasoo qayb qaato qofkii rabo oo invitationkaas inuu ka jawaabo rabo waa inay ku dhuftaan meesha ay ku qoran saad for example hadda fiiri waxaan groups kan fiiri wada public waa macna waxa laga yaabaa qaarkood inay yihiin maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg private inay yihiin waa laga yaabaa maaragtay qaybaan laakiin waxay u badan yihiin group public so hadda flow dhaado waxa laga inuu aqbal kaaga baahnayn groupkan soo gudaha uu gali kartid so hadda waxa tagaa meesha ay ku qoran tahay groups qofkii rabo inuu arko inuu groupka uu ku jiro ama inuu invitation helo waa kana hadda maxay dhahay groupkan oo private group ku jirta okay haddii marka maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg oo hadda may groups bis ay qoran haddii invitation la soo diro meelahana waxa ku qornaa meel may invitation ku qoran tahay oo click dhigi karta hadda marka groupkan waxa ku lugan hal qof bis halka qof yaa waa aniga waa qofka invitation ku diray aawe wali ma soo aqbalay hadduu soo aqbalo laba ay noqonaysaa saasay ka dhignaanaysaa qiimaha maxaa sameynaa marka hadda marka groupka marka aad sameyso wixii ahay sidoo dhan groupkana soo galay hadda kadib marka dhahdo literature marka wax soo raadiso wixii aad soo raadiso waa soo drag gareene groupkana soo dhex gashanay tusaalahan ka soo qaad inaan raadiyo NC waxaan baa raadiyo ka soo qaad soo marka walba oo wax raadiso kana kala soo helay for example kana kala soo qaada drag soo leeyahay sorry waa kana waxa soo galna groupka meeshaan soo galna you see group ko soo dhaxgal marka mar walba waa soo galna macna hadda u baahan tahay for example intoo dhan aad tagaysaa waxa la all leh kadib waxa leeyahay waxa soo dhahdaa copy de for example okay ama maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg in ka soo magacyo kala duwan oo ku dhahay macna laakiin format citation okay so inta tag waxa dhahdaa inta ka soo qaadba bas inta ku leh haddii uu maaragtay maxaa la ka yeelaa qaybaan laakiin waxa kala sameyn kartaa inaad dhamaantoodba aad maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg ku soo sameyso drag inaad ku soo sameyso oo inta soo geliso macna kaasa ka si fiicnana so you see kana waa kane intuu ku yaala kana waa kane okay aku celiyo maxaa sameynaa ani hadda intay wax igu jireen hadda folder ay igu jireen hadda u baahan waxaan folder ku jirina group ku daro control A dhaha for example dhamaantood hadda u baahan kadib dhamaantoodna soo wada qaada meeqa xabaa wada 19 xabaa wada u jida inta soo galna hadii u baahan hadaan u baahnayna waa kaas hadii wax kale u baahan marka groupka marka dadka kuula jiro oo memberska oo dhan ayaa groupka maarad ka soo muuqanay okay inta ku laabto maxaa la yiraahdaa ii sheeg groupka waa kane hadaan marka u baahdo inta groupka ku dhufana for example click de groupka si aad aragto waxa ku jira iyo groupka iyo waxa ay maaragtay maxaa la lahaa waxa uu yahay groupka waxa uu yahay soo marka groupka ku dhufato okay inta waxa ka soo baxay soo hadda u baahan tahay inaad wax ku soo darto waa kane meeshaan ay isticmaali kartaa si aad maaragtay maxaa la wax ku soo darto haddaad rabto inaad mention sameyso waa kane qofka mention ku dhigi kartaa iyo bosses waxba maaragtay dhigi kartaa overview memberska da u baahan tahay dadka xubnaha groupkan ku jiro waa kane so this wuxuu ku tusinaa memberska group ku jiro so only one member waa documents waxa loo jeedaa waxyaalaha ku dhex jiro this very important kana meeshaan ugu muhiimsan waxyaalaha maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg la rabo inaad maaragtay wax ku jira so hadda that means waxa waaye waxba ma ku jiro ay ka dhigan tahay okay so for example ana kan ku soo daro okay akaase dan sign calaamadana taawana si maaragtay ugu soo dhex muuqdo ku cilna marka kan waxa la hada documents soo leeyahay si aan u arko hadii jiraan wax soo galay ama maaragtay maxaa la yiraahdaa la arki karo maybe due to the internet network wuxuu u baahnaanaysaa waqti u baahnaanaysaa meelaha qaar okay so okay
so xoolo documents ka ku jira waxa waaye 21 documents oo kale ayuu ka dhigan yahay but that was okay analyze so but I don't think inuu 21 ku jirto waxa uu maleynayaa inuu hal xabbe ku jirto macna okay so dhowr xabbe waxa laga yaabaa inay yihiin waxyaalo isku mid mid ah oo keenayo oo isleeyahay waxyaalahan isku mid waaye ama way la mid yihiin kaas la mid yihiin inuu mararka qaarkood ku tusinayo sorry waxa laga yaabaa inuu maaragtay na tusinayo waxyaalaha ku dhex jira hadeet waxyaalaha aan ku soo darnay sorry hadeet waxba ku soo darnay waa delete gareynaa hadeet waxa ku soo delete garnay inta meeshan ku jirto waa maaragtay maxaa la hadeet ku soo darnay so waxa laga yaabaa kuwan inay tahay kuwa na tusinayo qaybaan no problem hadba sida ay maaragtay maxaa la tahay hadaa u baahan tahay in qof kale soo geliso waxa leedahay invite a members inta ku dhufanaysa hadaa rabto in qof kale group ahaan ku darto calaamadan ku dhufatay noqonaysa si ay qofkaas u soo invite gareysa ama maaragtay maxaa la u soo casuumto kadibna aad emailkiisa iyo wixii aad qorto qofka so emailkiisa inaad qorto kadibna aad maaragtay sidaas invitation ka aad ugu darto ay maaragtay maxaa la u baahnanaysa intaas aan ku gabagabeynayna marka waxaan baranay maanta sida web ama sida maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg website sida kan oo kala ama web page sida kan oo kala sida xogta ku qoran reference looga sameeyo waxay u baahan tahay dhana kaas waxa la dhaho Mendeley web importer oo waxa dhana inta tagno aad doorno tool kadibna dhana install web importer kadibna ku rakibno marka ku install gareena inta uu naga soo muuqana dhana marka page uu ku furmo marka inta taabanaysa dhana kadib marka inta taabad kadibna waxa ku soo baxay information ciwaanna inta badan inta ku soo baxay ciwaanadaas mid ka saxda ah oo tag saar hada kana tag saarnay daarta kana tag saar kartaa daarta maaragtay kana tag saar ka mid ka saxda inaad tag saarto kadibna aad taabato aad marka aad taabato kadibna inay imaano meeshan oo aan doorano maaragtay calaamadan send si uu noogu soo dhex galo wixii aan sameeyay qodobka kale waxaan barano waxa waaye sida maaragtay maxaa la yiraahdaa file ama maaragtay maxaa la yiraahdaa folder loo soo geliyo waxaan hadaa u baahan tahay in file meeshan soo geliso waxa u baahan tahay in calaamada tagno kadibna aan file hadoo folder yahay folder soo gelino oo kadibna sidaas noo soo gal waxa kale oo baran hadii duplication sida loo checking gareey hadii jiraan files waxa la doortaa aan waa ka shakisan tahay si ay iska checking gareysid in aad ku dhufato kadibna aad taabato merge meelaha ku qorantahay si aad maaragtay meesha uga saar waxa kale oo baran sida group loo sameeyo soo hadda hal group aan sameeysan hadaa u baahan tahay in group sameeyso kale kan group saddexda waxyaalood in aan ka kala fikirno sida groupka inuu noqonayo maxaa la yiraahdaa ay sheeg public iyo private iyo waxyaalaha midka aan noqonayo midaas inaan maaragtay ayadana ka fikirno ay noqonaysaa qodobkan marka meeshaas aan ku gabagabeeyno mahadsantiin